السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة وسلامتين ملكستو الدنيا دافيد كجوكتان كسو دوادة برامج كينا عيارة انت بدن برامج كان وحكا قبقتان شيكوين كوبدا عكتو وقت حاضر كان تاغن سيدو كال انت بدن صاحبة قيمها برامج كان وحكا قبقتان شيكوين كوبدا عكتو وقت حاضر كان تاغن انت نقولو قرين برامج كهديتا مركي كوغوري صوب بقونيسا جانالك فضلا سبسكرايب نوصار سيدو كال هايلوين انا مغالك لاغنوت inaan iloowin inaan muuqaalka laga noo saarto aan ku bilaabno qodobkeena kuwa saaxiibada qiimaha badan oo official ninkii ahaa Haaland Man City way ku dhawaaqday sidoo kale saaxiibada qiimaha badan official statement ay kooxda kubadda cagta Man City soo saartay sidoo kale soo jeedin baraha bulshadana way ku soo shaacisay hadii noqoto Facebook Twitter any social media kooxda isticmaashana way soo dhigtay xaqiijisay in heshiis la gaarto kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund sidoo kale ay ka rabto weeraryahanka loo yaqaan isreekarka ninka lagu magacaabo Haaland sidoo kale Haaland kooxda wuxuu doona kooda July sanadkan 2022 ayuu imaan doona sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan sheekadii maalmihii ugu dambeysay jeetamaysay waa deeldan maadaama kooxda kubadda cagta Man City ay hadda xaqiijisay in weeraryahanka lagu magacaabo Haaland ay gacanta ku soo dhigtay wada kale saaxiibada qiimaha barnaamijkan ku soo qaadanayna waxa kamid ah wiilka reer Italy wiilka reer Talyaani wiilka lagu magacaabo Leonardo Spinazzola saaxiibada qiimaha badan wiilkan kubadda cagta ciyaaristeeda waxay ku soo laabtay ku dhawaad 312 maalmood kadib iyo kubadda cagta ku soo laabtay sidaan ka warqabna wiilkan wuxuu ka jabay mid kamid wiilkan saaxiibada qiimaha badan dhaawac culus ay soo gaaray tartankii Saudi Euro 2020 sidoo kale Talyaaniga raga ka caawin inay ku guuleystaan koobkan ayuu kamid ahaa sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan muddo 312 maalmood kadibna ciyaarista kubadda cagta ayuu ku soo laabtay wiilka lagu magacaabo Leonardo Spinazzola sidoo kale ninkan saaxiibada qiimaha badan waxa la rajayn doonaa xil ciyaareedka cusub nagu soo foodlay in kooxdiisa kubadda cagta Roma uu caawin doono sida daraaddeed wiilkan 300 maalmood kadib ayuu ciyaarista kubadda cagta ku soo laabtay hadda la xaqiijiyay dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan kooxda kubadda cagta Barcelona waxay diyaar u tahay adduun lacageed gaaray 167 milyan inay qasaarto sidoo u iibin lahayd ninka lagu magacaabo Philippe Coutinho sidaan ka warqabna Barcelona xil ciyaareedkii 2018 kooxda kubadda cagta Liverpool waxay ka soo qaadatay ninka lagu magacaabo Philippe Coutinho lacag adduun lacageed gaaray 188 milyan ay ku soo qaadatay sida daraaddeed hadda waxay diyaar u tahay inay ka tanaasusho ama ay lumis lacag gaarayso 167 milyan maadaama kaliya hadda ku fasaxi doonto wiilkan lagu magacaabo Philippe Coutinho kaliya 20 milyan ayuu ku fasaxi doontaa sidoo kale ninkan saaxiibada qiimaha badan hadda wuxuu waqti qurux badan la qaadanaya kooxda kubadda cagta Aston Villa sida daraaddeed asna wuxuu diyaar u yahay kooxda Aston Villa inuu ka mid noqdo sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan xalliya Barcelona qasaar la xal ay la kulmi doontaa Barcelona intaan kaliya wuxuu sameynaysaa ninkan saaxiibada qiimaha badan mushaar weel ayuu sanadka ka qaataa sida daraaddeed hadduu kooxda ku soo laabtana dhibaato xooggan ay ku noqon doontaa midda sida daraaddeed Barcelona waxay diyaar u tahay inay lacagtaas qasaarto sidoo kale Aston Villa waxay diyaar u tahay in ninkan heshiiskiisa ay permanent ama joogto ka dhigto sidoo kale ninkan lagu magacaabo Coutinho wuxuu ku faraxsan yahay saaxiibada qiimaha badan shaqaynta macalinka lagu magacaabo Gerrard dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan kooxda kubadda cagta Arsenal markan waxay duulaan ku tahay kooxda kubadda cagta Man City Arsenal hadda waxay diyaar u tahay ninka lagu magacaabo striker ama weeraryahanka lagu magacaabo Gabriel Jesus inay ka soo qaato Man City maadaama Man City hadda ay Haaland gacanta ku dhigtay saaxiibada qiimaha badan Gabriel Jesus waa 25 jir oo Brazilian sidoo kale kooxda kubadda cagta Man City Etihad ku ciyaarta wuxuu u saftay waayihiisa 234 kulan ay u saftay sidoo kale 141 goolna shabaq uu gaarsiiyay ninkan saaxiibada qiimaha badan qandaraaska oo kula jiro Man City wuxuu ku xigay xil ciyaareedka dambe 2023 ayuu ka dhacay sida daraaddeed ninkan saaxiibada qiimaha badan kooxdiisa waxa ninkan saaxiibada qiimaha badan waxa gacanta u haadinaysa kooxda kubadda cagta Arsenal in ay gacanta ku soo dhigtay ay rabtaa sidoo kale saaxiibada qiimaha badan Arsenal waxay kala rabtaa wiilka lagu magacaabo Sterling sidoo kale ninkan saaxiibada qiimaha badan Sterling asna mustaqbalkiisa shaki weyn ayaa ku jira maadaama ninkan saaxiibada qiimaha badan leeyahay wuxuu soo lugsay inuu heshiis cusub u saxiixo sida daraaddeed kooxdiisa kubadda cagta Man City waxay soo dhigtay suuqa sidoo kale waxay ku doonaysaa adduun lacageed gaaray 50 milyan ay ku rabtaa sida daraaddeed Arsenal waxay rabtaa in ninkan gacanta ku soo dhigto qodobada kale saaxiibada qiimaha badan waqti xaadirkan taagan barnaamijkan ku soo qaadan karna waxa kamid ah ninka lagu magacaabo Paul Lebele Pogba ninkan saaxiibada qiimaha badan sidaan ka warqabna kooxdiisa kubadda cagta Manchester United heshiis kula jiro wuxuu ku eegay xil ciyaareedkan bisha June lagu soo foodlay ayuu dhacal sida daraaddeed ninkan waxa isku haystaan kooxaha ugu caansan qaaradda Yurub ka ciyaar haday noqoto Real Madrid Juve PSG dhamaan saaxiibada qiimaha badan xiise waali ayuu u qabaa ninkan lagu magacaabo Paul Lebele Pogba sidoo kale saaxiibada qiimaha maalmihii ugu dambeeyay Man City ayaa ninkan baadi goob xoogan ugu jirta sidii gacanta ugu soo dhigay 29 jirkan Faransiiska laakiin ninkan saaxiibada qiimaha Pogba wuxuu soo loogay inuu ku biiro Man City maadaama ninkan saaxiibada qiimaha badan qadiyada Man United ay ku weynta
sida daraaddeed ninkan hadda loolan waxa ugu jiraan kooxaha kala Real Madrid, Juve, PSG. sidoo kale waxa la leeyahay saddexdan naadi midii mishaar buran u soo bandhigto kaliya ay ku beeri doona sida hadda ay ku soo waramayso Daily Express. kala saaxiibada qiimaha badan xiisaha leh barnaamijkan ku soo qaadan karno waxa kamid ah weeraryahanka lagu magacaabo Thierry Henry ayaa hadlay sidoo kale ninkan saaxiibada qiimaha badan wuxuu gantaal culus ku riday kooxda kubadda cagta Real Madrid. wuxuu dhahay saaxiibada qiimaha badan dhammaan kooxaha Yurub ka ciyaar waxay aad ugu baqaan kooxda kubadda cagta Real Madrid. sidoo kale wuxuu dhahay Real Madrid aydan waxay ka baqdaa kooxda kubadda cagta Barcelona. sidaan ka warqabno ninkan saaxiibada qiimaha Blaugrana wuxuu soo dheelay intii u dhaxaysay 2007 ilaa 2010 ee ka tirsanaa Barcelona. sidoo kale Henry saaxiibada qiimaha badan waa yeesay Barcelona ku dhawaad 80 kulan ayuu saftay sidoo kale 35 goolna shabaq ayuu gaarsiin. sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan ninkan hadda wuxuu leeyahay kooxda kubadda cagta Real Madrid kooxaha Yurub dhan ayaa ka baqay laakiin Real ayaga waxay ka baqdaa kooxda kubadda cagta Barcelona sida hadda uu leeyahay. sidoo kale ninkan saaxiibada qiimaha badan wuxuu saadaalay finaalaha ee bishan May last deedeeda lagu ciyaari doono kaasi Paris waxaa iska hor imaan doona kooxaha kala Liverpool iyo Real Madrid. sidoo kale ninkan saaxiibada qiimaha badan saadaalinta u dhigto wuxuu leeyahay koox xabadin doonto kooxda kubadda cagta Liverpool. sidoo kale ninkan waxa laga weydiiyay saaxiibada qiimaha badan ciyaaryahanka sanadka u qalma inuu ku guuleysan karo abaalmarinta loo yaqaan Ballon d'Or. ninkan saaxiibada qiimaha badan wuxuu leeyahay ciyaaryahano badan oo caalamka kamid ah ay baashan u tartamayaan. sidoo kale ugu horeeya ninka lagu magacaabo Karim Benzema iyo sidoo kale Sadio Mane sidoo kale Mohamed Salahna tartamayaasha ay kamid yihiin. sida daraaddeed ninkan saaxiibada qiimaha badan fikradiisa ayuu ka hadlay wuxuu leeyahay u qalmo waqti xadarka in la siiyo biladana waa laacibka lagu magacaabo Karim Benzema. saaxiibada qiimaha badan Karim Benzema 43 gool ayuu shabaqa gaarsiiyay sidoo kale 14 assist ama caawinna uu sameeyay. sida daraaddeed wuxuu leeyahay ninka lagu magacaabo Henry Karim Benzema qof kaga qalma abaalmarinta ma jirto. waana runtii saaxiibada qiimaha Benzema xil ciyaareedkan wuxuu sameeyay ma jiro ciyaaryahan la mid ah wax sameeyay laakiin ninkan saaxiibada qiimaha badan gantaal wuxuu ku riday kooxda kubadda cagta Real Madrid. وتكون سنتين صاحبة قيمة بنداوش أضاءتين مقالك وحلقة سنقولن برنامج كنا يعيار أنت بدن برنامج كحن كسوقنا شيء كوينك وقت حدر كاستاجن وتكون سنتين داوش أضاءتين مقالك عندي تامرك كوغري صوب وقنا شانلك سبسكرايب نوصار صدق كهلوي إن مقالك لاج نوصارتون أركتها كومنت نغرب هذاك متى صاحبة هرنور جو حنكا عصنا مقالك شر لسه صاحبه نقصده وكرجنا كوغو صبران أنت برنامج كان برنامج لم يكن كل منه معنا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.